daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa daraasadeena shanta gees mawduuceedii miisaanka nolosha qaybihiisii oo golaha ummadda Soomaaliyeed golihii shantii qaybood aan u qaybinay golaha ummadda qodobka ugu dambeeya ama tiirka ugu dambeeya aan isla soo gaarnay shanta tiir waxay kala ahaayeen tirada guud ee golaha qaybaha uu kala baxo dhismihiisa shaqada uu qabanayo waa soo marnay waxaas oo dhan tiirka ugu dambeeya wuxuu yahay muddada uu shaqaynayo haddii waxaan muddo aan loo samaynin waa ogtiin bini aadamkaaba muddada soo maahan uusan dhaafaynin ilaahay ugu talagal wax kastaan waxaan ku iri markaan albaabka ka soo gelaynay qaacidada aan ku siiyey waa ood ogeed waxaan ku iri shay kastaa ama haddii in la sameeyo la rabo ama uu samaysan yahay shantaas kama baxsanaan ku iri koo waa inuu tiro uu leeyahay shaygaas tiro guud uu ka kooban yahay qaybo uu sii kala baxa waa inuu leeyahay qaybahaas maxay tahay qayb uu isugu xiran yahay maxaa la dhihi jiray qaab dhismeedkiisa shaqada uu qabanayo iyo muddadiisa wax kastaa ku tijaabi hadda shayga kugu dhow baa allah ka dhigay ku tijaabi shantaas miisaan ma dhaafi doono marka waxaan soo gaarnay mawduuc ama tiirka ugu dambeeya ee ah muddada golaha ummadda Soomaaliyeed golaha muddadiisaan rabnaa marka shaqada uu qabanayo muddaa la siiyey shaqada uu qabanayo waa soo dhisnay shaqada hadda inuu qabta muddadiisaan magacaabi doonaa ila socda koob tiirarka ay ku dhisan yahay muddada waa shanta tiir maxaa waaye sanadka koowaad shaqada laga rabo inuu qabto sanadka labaad shaqada inuu noo qabto aan ka rabno sanadka saddexaad shaqada aan ka rabno inuu noo qabto sanadka afaraad in shaqada uu noo qabto aan rabno sanadka shanaad shaqada uu noo qabanayo ugu dambaysa kadib wixii ka yeeli doono isu sheegi doonaa waa ogtahayba baryahanna waxaaba socotaba waqtigaaga waa dhamaaday ka tag iyo waqtigeygii ma dhammaanin qolo kalena ay tiri waxa loogu daro marka dhibaatooyinkaas oo dhan waa ka bixi doonaa insha Allah nin walba niyadiisa khayr ha u sheego maxaa la dhihi jiray adduunyada nololad ku leedahay noloshaadana ama ala hagaajisanay ama waa lagu hagaajinaa labadaas mid waaye qaybta asoo faahfaahsan geli doona fadlan ay la socda daawadayaal weli waxaan barta kaga jirnaa daraasadeena shanta gees mawduucii shanaad miisaanka nolosha qaybtiisii koowaad ee golaha ummadda Soomaaliyeed shanta tiir waa inoo soo dhamaatay tiirka ugu dambeeya oo ah muddada golaha ummadda Soomaaliyeed macnaha muddada uu noo shaqaynayo wax walba uu noo soo qabanayo waan aragnay madaxweynaadkiisa waa soo marnay sanadka koowaad sanadka labaad sanadka saddexaad sanadka afraad sanadka shanaad waaye laakiin sanadka koowaad muxuu qabanaa sanadka labaad muxuu qabanaa sanadka saddexaad howshiisa maxay tahay sanadka afraad sidaas sanadka shanaad maxaa laga rabaa inuu soo gabagabeeyo koow sanadka koowaad muxuu noo qaban shaqadu inuu qabanaa waxay tahay wuxuu soo dhisaa ama uu soo saaraa isla asagi golihii uu soo saaraa golaha ummadda Soomaaliyeed waa golihii dhexe golaha waxaan leeyahay laba u qaybinaynaa golo qofka shakhsi uu ka tirsan yahay iyo golo 20 golo u dhaxaysa hal golo oo 20 golo u dhaxaysa oo udub dhaxaad u ah macnaha haddii 20 golo saani u wareegsiin asaga udub dhaxaad ayuu u yahay golayaasha saas markay u wareegsan yihiin asaga wuxuu u noqonaa udub dhaxaad waa golo kasto 1 2 3 4 5 6 mid kasta wuxuu kusoo biyoorsanaa golaha dhexe ama golaha sare mid loo bixiyo waxba dhibaato ma lahan waan ka soo sheekeynay macnaha miisaalkiisa qofka xilka raba tusaale wasiir rabta laakiin se wasiir hadaa rabtid hadda maxaa lagu leeyahay beesha ka tirsanta afarta beelood waaweyn beesha yariista ah oo haafka ah wax saasa laga yaabaa hadda inaad macnaha u martid laakiin hadda waxaad u mari doontaa golihii aad u dhalatay
qabiilkaaga xagga dhiga dhig qabiil waa soo sheegnay waa wuxuu ilaahay adiga gaar kuu siiyey laakiin waxaan rabnaa xirfad nololeedkaagii yah in aad wax nagula qaybsatay annana kugula qaybsano haddaad tahay geeljire anigana aan macallin ahay qasab meel isaga xirmi karna ayaa jirta meeshiina waa tan okay sanadka koowaad wuxuu noo soo xuli doonaa golaha isla asagii soo xili doona isagoo si soo xula xubnaha rabaa in golaha dhexe uu u shaqeeyo ama uu ka shaqeeyo ama mas-uul uu ka noqdo ayuu soo saaraa waaxda howlwadeennada waa nagu soo noqnoqotay sababtay noogu soo noqonaysana waxaan ugu talagalnay inaan fahan rasmiya ka yeelano waaxda diiwaangelinta waaxda hubinta waaxda shuruudaha waaxda ogolaanshaha shantan waaxood uu soo xuli doonaa sanadka koowaad sanadka labaad markii waqti uu kaa dhaco maxaa dhow la soo istaagaysaa qabiil ninkeeda dhammaystira iyo hawsha saan waaye iyo dadkan lagu leeyahy waa hormareen wax kale ma ahan awoowayaashooda waxay u jeexeen waddadaasina ku wada socdaan haddii aan maxaa la dhihi jira tusaale ka bixino nin kasta oo xilka ugu sarreeya loo dhiibo haddii waddo adiga aad wax ka bixisay ama awowaaga hore wax ka bixiyay adigana aad maanta raalli ka tahay oo ku tagaa waxba dhib kuguma hayso haddaad beeraley tahay beerahaaga iska qodan haddaad xoolaaley xoolaad haddaad maxaa la dhihi jiray macallin tahay haddaad farsamo yaqaan tahay wax lurama kugu hayso laakiin hadda qabiila wax lagu qaybsada nin kastoo meesha la geeyaa weliwel aad ka qabtaa ya waayo qabiil wuxuu isku sameeyey iyo waxaan isla soo marayna waa ognahay marka saas darteed waxaan rabnaa waxaan niraba ogtahay wadiiqada aan bixin doona maxaa la dhihi jiray tusaaloo kale gaadiidkeeda markii ummadda ay wada fuusho darawalka laga maarmaan waay soo maha laakiin darawal jid loo bixiyey oo waqtigii uu istaagaya iyo waqtiguu soconaya iyo waqtigii maxaa la dhihi jiray raashin la cunaya iyo waqtigii la hurdaa intaba gacanta loo saaray waxba kaba qabtay kursigaa iska tegaysa waa iska saaxanaysaa marka waxaan rabnaa waa wax saasa ila socdayaan sharaxaadda idinku gelin sanadka labaad muxuu noo qabanaa sanadkan labaad wuxuu qabanaa aqalka wuxuu la mid yahay tusaale yar oo kooban haddaan ka bixiyo maxaa la yidhaha luqunta labada garab ay udhexaysaa soo lama dhihin aqalka waa meesha ummadda u dhexaysa waayo meesha ummadda si uu shaqaynaya waa noo imaan doontaa laakiinse waa udub dhexaadkii bulshadu noqonaa suu u noqonaa waxaa waaye wax kasta asay kusoo hormayaan okay yaa fadhiya marka yaa fadhiisanaya dadka fadhiisanaya waxaa ugu horeeya dadka culumta diinta yaqaana takhasus ya aan noo fadhiisan doono dadkaas intay ka soo baxayaan 4.5 no sir waxaa soo xuli doona golaha aan shaqadaas u dirsanay culumta dadka culumta laga barto noocay doonta ha noqoto dadka ku taqasusay dhow macnaha waxaan ka dhigi doonaa maxaa la dhihi jiray noocyada isafiyada ay u kala baxaan inta laga rabo iyo waa u tagi doonaa culumta dalka dadka yaqaana culumta dowladnimada dadka yaqaana culumta afafka dadka yaqaana aqalka fariisan doona waayahay sanadka saddexaad aqalka muxuu sabaacaya maxaa la dhihi jiray golaha muxuu soo xuli doonaa xubnaha guddiga doorashada qaban doona waxaa kale oo soo xuli doona xubnaha golaha la talinta waxaa kaloo soo xuli doona xubnaha guddiga farsamada xubnaha guddiga dabagalka xubnaha guddiga kormeerka ugu dambeeya dadka shaqadan qaban lahaa waa xubintii dadkan oo dhanna asagaa soo xuli doona ka gudub sanadka afraad muxuu qaban doonaa sanadka afraad wuxuu soo xuli doonaa xubnaha musharaxiinta madaxweynahan dhehe madaxweyne kasta meeshuu soo mari doona inta waaye labo xubnaha baarlamaanka meesha ay kusoo bixi doonaan
hebel konton hala siiyo laf hebel konton hala siiyo kuwan minority-gaan maxaa la jira intaas hala siiyo ama kala bar hala siiyo waxaas waa ka tagnay baarlamaanku waa sheegnay 3 xubnaha wasiirada wasiir iga dhig waa dhamaatay 4 xubnaha hay-adaha garsoorka iyo magacaaw aniga jagadaas waa dhamaatay ama kan niyahow anuu niyo aqaariyaygu ka dhamaan lahayn niyo garsoorkan siisna meesha ka saar waa dhamaatay iyadana 5 xubnaha taliyaasha ciidamada kuwan waa la magacaabaa wixii la magacaabaa waxay ku qasban yihiin inay jadwalkan soo maraan sanadka shanaad wuxuu noo soo xuli doonaa ilaahay idinkiis kow xubnaha wakaalada xoolaha xubnaha ka shaqeynaya 2 xubnaha wakaalada beeraha xubnaha wakaalada badda xubnaha wakaalada khayraadka dhulka xubnaha wakaalada hay-adda xubnaha wakaalada hawada sare intaan ayuu asna noo soo xuli doonaa laakiin waxaad ogaataan aqalkii waa noo dhiman yahay qaab dhismeedkiisii iyo wixiisa oo dhan guddiga sidaas oo kale dawladda sidaas oo kale maxaa la jiray wakaalada hawada maya hay-adda maamulka khayraadka qaranka waa noo dhiman yihiin waxaas oo dhan waa inoo soo socdaan laakiin hadda waxaa inoo dhammaaday golaha ummadda Soomaaliyeed tiradiisa guud qaybihiisii dhismihiisii shaqadiisii iyo muddada uu shaqeynayo waxaan u maleynaa wax cad saaran meesha kuma jirto insha Allah waxaan geli doonaa qaybaha ku xiga qaybta intaysan noo joogi doontaa la socod wanaagsan waana ku mahadsantihiin daawashada daraasadda shanta gees iyo la socodkeeda wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.